السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملك استوى جوجتان كسو دوادا برنامجكيني تضباط الله حقته تضباط كا أسبوعي بهالمرات كداوتان شاشة تلفزيونك عالمي قايساب أنغو يدي كسو قدبيني نحرمتا قودة تيفيقو كل مقالة هرقيسا برنامجك وحيدي سو صار يدي لنا السعود سيانيقو عبد الرحمن عبد الله فانتاستيقا قضبادا داودي لان برنامجكيني حقته تضباط كان كسو قادن دوننا وحكميدا ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ugu tunka weynaa in ka badan 25 ruux ayaa ku geeriyooday tiraynta ka badanna way ku dhaawacmeen mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay dalka Iran kuwaas oo lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ayaa waxay burisay go'aan ay hore uga soo saartay kiiskii loo haystay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxkamadda gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dib ugu soo celiyay gacanta dawladda dhulka loo yaqaan raasiga ee magaalada Berbera kaas oo hore dad shacab u siisay xukuumadii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo daawadeel kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada barnaamijkeena toddobaadkan aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena qodobadaasi qodobo kale ayaan insha Allah hadii Allah u dalin maynu ku falanqeyn doono isla markaana aynu ku eegi doonaa balse haatan ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu xilkii ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada kuwii ugu tunka weynaa xukuumadda dowladda federaalk ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo warshadaha looga qaaday xilalkoodii wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, Qadra Axmed Ducaale iyo Cabdi Faarax Juxa ayaa waayay xilalkii ay ka hayeen xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya. Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, halka wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay Danjire Axmed Ciise Cawad. Wasiirada cusub ayaa lagu amray inay si dhaqso ah xilalkooda ula wareegaan sida uu saxaafadda u la wadaagay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya. Wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018. sidoo kale mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018. sidoo kale Danjire Axmed Ciise Cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018. wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. xilka qaadista iyo magacaabista uu sameeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa imaanaysa iyadoo wali ay banaan yihiin boosaskii ay baneeyeen laba ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo kala ahaa wasiirkii gargaarka iyo wasiirkii diinta iyo waqaafta. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdina waxa uu gacanta dawladda dib ugu soo celiyay dhulka loo yaqaan raasiga ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil kaas oo hore ay dad shacab u siisay xukuumaddii hore madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. sidoo faahfaahin arrintaasi ku saabsan uu inoogu soo koobiyo wariyahayga Cabdirashiid Cali Barre. wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambe oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhulka raasiga magaalada Berbera dhulkaasi ayaa waxa hore u bixiyay xukuumaddii hore ee garwadeenka ka ahaa mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyadoona dhulkaasi waqtigaasi gacanta loo geliyay dad ganacsataa sidana soo gaadhay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray dhulka raasiga Berbera oo saaka wareegtadiisuna soo gaadhay dhulka raasiga Berbera cid isticmaali karta iyo cid warqada u haysatay ama hore meel waraqo uga haysatay cid isticmaali karta iyo cid awood u leh iyo cid ku tagrifali karta ma jirto. ciddii warqad u haysatay iyo ciddii ballanqaad u haysatay iyo ciddii amar kale iyo si kale u soo gashay dhammaan dhulkaasi intuu leegyahay oo dhul lagu qiyaasay 3,000 dheeraad oo mitir ah cid isticmaali karta iyo cid la siiyey
iyo cid awood u leh ma jirto wuxuuna ka hoosaaray madaxweynuhu dekreeto saakadan na soo gaadhay oo dhulkaa ka mamnuucday cid kasta oo sheeganaysay inuu yahay dhul dawladeed oo hantida qaranka ka mid a cid isticmaali kartaana aanay jirin. dhanka kale cabdirashiid xaaji ducaale qambe wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ee somalilan waxa uu sheegay inuu dhammaan maayarada dalka oo dhan uu diray 2 warqadood oo ay wasaaradda howlaha guud ku amrayso in 4 bilood ee soo socda aanay jiri doonin wax dhul ah oo la bixiyo ama la qorsheeyo. waxaan u qoray maayarada dalka 2 warqadood oo aan u diray kuwaas oo intan aan hadda ku hadlaya iyo socodsiinteeda uun ku saabsan sidaana ay la socdaan iyagoo waraaqahaasi soo gaari doonaan waxaanuna ka sugaynaa oo aanu ka sugaynaa maayarada dalka iyo golayaasha deegaanka ee dalka ee gobolada degmooyinkiisa inay noo soo gudbiyaan dhammaan qorshayaashii magaalooyinka ee ay sameeyeen qorshayaashii magaalooyinka ee dhulka danta guud ee ay kala wareegeen maamuladii ka horreeyey iyo inta gacantooda soo gashay muddadii hadda ay joogeen. waxaa kale oo halkan aan ku xusayaa in 4 bilood soo socda dhammaan dalka aan wax dhul ah oo laga bixiyo ama laga qorsheeyaa in la xidhay oo wasaaraddu xidhay sidaana maamulada dawladaha hoose ee dalku dhammaantood ay ogaadaan shacabka Somalilandna ay ogaadaan. maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ayaa waxay burisay go'aankii hore ee maxkamadda gobolkaasi ay ku buri yeeshay kiiskii loo haystay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta dalka Soomaaliya isagu maalmihii u dambeeyay kiisas kala duwan lagu soo oogayay kaasoo la sheegay in dibadda ka riixayso xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. faahfaahin arrintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Iidle. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo maanta u fariisatay kiiska loo haystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa go'aan ka gaartay kiiska loo haystay. maxkamadda ayaa sheegtay in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aanu ka bixi karin dalka xeer ilaalinta qarankana oo madax banaaneeyay in ay baaritaan ku sameeyaan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyadoo ay waxba kama jiraan ka soo qaaday hadalkii gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheekh oo ku sheegay in uusan wax dambi ah uusan lahayn siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo gurigiisa horaan weerar lagu qaaday. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jiraa'id ku qabtay xarunta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan gurigii horaan weerarku ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ay sharci darro tahay in xorriyad uu siiyay dastuurka dalka lagu marin habaabiyo dana siyaasadeed oo ay leeyihiin sida uu sheegay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in la gaari doono xilli la xisaabtamo wax badan la iska weydiiyo. waxa uu ku sheegay gabood fallo isaga ka dhan ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay geysanayso hadda waxaana uu wax la yaabo ku tilmaamay in madaxda dowladda xeer ilaalinta iyo maxkamadda dastuurka aysan waxba iska weydiin askartii lagu laayay hantidii laga qaatay xarunta xisbiga Wadajir iyo dhaawacii loo geystay siyaasiga habeenkii weerarka lagu qaaday hoyga uu degan yahay. saddex waxa sharci darro ah in markale xorriyadeedii uu siiyay dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xafiisyada villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. 4 waxa fajacaya ama kaag ah qof kasta oo Soomaaliyeed ay la yaabantaa inaysan jirin hadday tahay madaxda dowladda xeraalinta iyo maxkamadda rafcaanka intaba in aysan marna isweydiinin weerarkii sharci darrada ahaa ee lagu soo qaaday xarunta xisbiga Wadajir ee maanta shirki jiraad ku qabanayno kaasoo lagu laayay 6 qofood oo Soomaaliyeed oo 5 kamid ah ay yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qariyay meydkoodii dhaawac la igu geystay aniga laguna burburiyay hanti badan ugu dambeyntiina lagu afduubay. 5 hay'adaha amniga ee garsoorka inay ka indhalaayihiin dhammaan dhibaatooyinkaas dhacay waxay muujinaysaa in ay mugdi gashay sareyntii sharciga. villa Soomaaliyana ay tahay meesha laga soo abaabulo dilalka qorshaysan iyo maxkamadeynta siyaasiyiinta ka ra'yiga duwan.
ugu dambeyntii waxaan caddeynayaa in aanan aqbalsanayn go-aanka maanta soo baxay oo lagu siiyey xeraalinta baaritaan dheeraad ah oo ay rabto inay kusoo dhoobto waxyaabo been abuur ah iyo in la gaaro waxaan kaloo caddeynayaa in la gaari doono maalin lala xisaabtami doono dhammaan kuwa xafiisyada haysta awoodda ku takrifalaya hadday tahay dhinaca xeraalinta ama xafiisyada fulinta ama xafiisyada garsoorka waxaa la gaari doonaa maalin lala xisaabtami doono. dhinaca kale maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir oo go'aanadii maanta ay soo saartay ay ka mid ahaayeen in shaqo joojin lagu sameeyey ganaaxna la duldhigay 8 qareen oo maxkamaddu ay sheegtay in ay diideen in ay u doodaan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa ay sheegeen xilli ay warbaahinta la hadleen in aysan jirin haba yaraatee wax ku saabsan arrinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo markaasi ay maxkamadda racfaanku kala hadashay. aad buu mahadsan yahay wariye iidleh daawadayaal saad la wada socotaanba toddobaadkaynu soo dhaafnay waxaa dalka Iiraan ka dhacay rabshado ballaadhan kuwaas oo ay dhigayeen shacabka ku dhaqan dalkaasi isla markaana lagaga soo horjeedo xukuumadda ka arrimisa dalkaasi iyadoo la sheegay mudaharaadkaasi ee shacabka dalka Iiraan ay dhigeen ay ku geeriyoodeen in ka badan 25 ruux. faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo koobiyay wariyahayga Maxamed Tirigo isagoo arrintaasi nooga diyaariyay warbixintani. xaaladda waddanka Iiraan ayaa kasii daraysa waxaa weli socda mudaharaadadii waddankaasi ka bilaabmay khamiistii lasoo dhaafay oo kusii fidaya deegaamada dalkaasi. shacabka reer Iiraan ee mudaharaadaya ayaa waxaa ka soo yeedhaya halkudhigyo kullidi ah xukuumadda talada haysa. maalmihii u dambeysay cadowga dalka Iiraan waxay isticmaalayeen lacag hub sirdoon iyo tab iyo xeelad kasta oo ay rabaan inay ku waxyeelayaan kuna khalkhalgeliyaan jamhuuriyadda islaamiga ah ee dalka Iiraan. sidaasi waxaa yidhi hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan qoraal uu soo dhigay boggiisa. wuxuu intaasi raaciyey inuu soo bandhigi doono sheegina doono wadamada falkani faraha kula jira wakhtiga ku munaasibka ah. mudaharaadkan rabshadaha wata oo bilaabmay khamiistii lasoo dhaafay ayaa ku fiday magaalooyinka waaweyn ee dalka. ilaa hadda inta loogu yahay 25 ruux ayaa ku naf waayey 450 kalena waxaa loo taxabay xabsiyada dalkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa tan iyo intii ay bilaabeen banaanbaxyadani boggiisa Twitterka soo dhigayay hadallo tiqtiiqsi ah oo taageero u muujinaya banaanbaxayaasha dalkaasi, isagoo sheegay in lacagihii madaxweynihii ka horreeyay sida nacasnimada leh u siiyey rajiimka talada dalkaasi haya ay noqotay bar ku dhacay jeebkooda iyo in u gacan galay ururada argagixisada. waxa uu madaxweyne Trump intaasi raaciyay in shacabka reer Iiraan ay u qiiqlaayeen sicir barar iyo cunto la'aan soo food saartay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan oo u jawaabay madaxweyne Trump sidaanu ka soo xiganay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay inay la gudboon tahay madaxweyne Trump inuu wax ka qabto dadka ku nool gudaha dalkiisa waa Mareykanka ee la daaladhacaya buuri hoy la'aanta iyo macluusha. mudaharaadkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca intii ka dambeysay doorashadii khilaafku ka dhashay ee 2009. aad buu mahadsan yahay wariye Maxamed Tirigo isagoo faahfaahin arrintaasi ku saabsan inoo soo koobiyay. haddaynu daawadeel dib ugu soo laabano gudaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa siyaabay iskuulidii waxay uga hadleen curashada sanadka cusub ee 2018 isagoona wasiirka diinta iyo awqaafta uu sheegay shir jareed uu ku qabtay xafiiskiisa inaanay banaaneyn dadka muslimiinta ay isugu hambaliyeen curashada sanadkaasi. hadalkaasi kadibna waxa cabaar kadib ama saacado kadib soo baxay war-saxaafadeedu madaxweynaha Soomaaliland uu ugu hambaliyay shacabka iyo guud ahaan ummadda ku dhaqan dunida daafaheeda kala duwan curashada sanadka cusub ee 2018. haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa stuudiyahayga magaalada Hargeysa inoogu diyaariyay inoona soo koobiya wariyahayga Khadar Xiise Dheere. wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn sheegay in xukuumadahan ay ka soo horjeedaan weynaynta curashada sanadka cusub ee 2018. waxaanu sidoo kale wasiirku ugu baaqay maamulka hudheelada magaalooyinka Soomaaliland aan lagu qaban karin munaasabado iyo xaflado lagu xusayo sanadka cusub. intaasi kadibna war ka soo baxay xafiiska warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu hambaliyay shacabka Soomaaliland curashada sanadka cusub ee 2018 oo maalintiisa koowaad ay ka mid tahay maalmaha fasaxa shaqaalaha dawladda. bal marka hore aynu wada milicsan oo sida uu dhigan yahay war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu hambaliyay iyo salaan ku saabsan munaasabadda sanadka cusub ee miilaadiga 2018 awgeed u diraya dhammaanba shacbweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddaba. madaxweynuhu mar labaad waxa uu munaasabadda sanadka cusub oo ka mid ah munaasabadaha fasaxa qaran awgood
uu hambalyo iyo salaamba u diraya dhammaanba shaqaalaha kala duwan ee dowladda qaybaha ciidamada qalabka sida golayaasha qaranka iyo shacbiga jamhuuriyadda Somaliland meel kasta oo ay ku nool yihiinba madaxweynuhu sidoo kale waxa uu shacbiga jamhuuriyadda Somaliland alla uga baryayaa inay sanadkiisa ku gaaraan nabad qabar waaqo bashbash iyo waliba horumar sida lagu yiri war saxaafadeedka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu shucuubta bulshada caalamka u rajaynayaa in sanadka cusub ee 2018 noqdo kii ula kowsada nabadgelyo iyo xasilooni taama dhanka kalena wasiirka wasaaradda diinta ee waqaafta ee Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed waxa uu ugu baaqay shacabka jamhuuriyadda Somaliland inay ka dheeraadaan weynaynta iyo isku hambalyeynta sanadka cusub ee 2018 waxaana wasiirku fariin u diray mas'uuliyiinta hudheelada magaalooyinka Somaliland waxa kale runtii ka wadagsantiin walaalayaal in caawo kale ay tahay in sanadkii cusub ee miilaadiga sanadka cusub miilaadigu sanad xuseeyan maaha laakiin duruufta caalamiga ah iyo isticmaalkii naga kacay iyo adduunweynaha u wacday inay ku tirsadaan taariikhda miilaadiga awgeed ayaa waxyaabo fara badan oo dhaqankeeda ah oo dhaqamo diiniyana ah ama kristaanku leeyahay ama yuhuuddu leedahay ayaad moodaa in lagu soo fidayaan taasna nabi maxamed baa sii sheegay sallallahu alayhi wasallam oo tilmaamay in maxaan ku dhahdaa ay cagta u saari doono ku dayan doono diimaha inaga horreeyay waxay sameeyaan ee bidcada ah oo rasuul sallallahu alayhi wasallam haddii xataa gashaan wala dakhaltum juhra dabbin la dakhaltumuh hadday god musacgalay galaan waa ka daba gelaysaan oo ku dayanaysaan nabigeena sii sheegay sallallahu alayhi wasallam laakiin macnaheedu maaha uu fasaxay waa in looga digo xukuumad ahaan waan ku digaynaa dowlad ahaanna waan ku digaynaa caawo kale waxa weeyaan waa habeenkii koowaad ee sanadka maxaanku miilaadiga ah kelmadda miilaadi waxa weeyaan waa dhalasho marka waxay ku tahay waxay iyagu u dabaaldegayaan dhalashadii nabi ciise oo mas'ala diiniya oo qaarkood ba xaflad sameeya dabtuur bay sameeyaan habeenkii bay soo jeedaan laba tug markii gaadho ayaa buuq iyo qaylaysa waxan u ka dhaca waa caadooyinkay leeyihiin xataa yuhuuddu way xaramaysay oo xaaqaamada ama maartay culimada xaaqaamada la yidhahda yuhuuddu way xaaratameeyeen inay ku daydaan maalinta kiristaanka waxay leeyihin maalin gaar ayaan leenahay oo sanado gaar ayaan leenahay sidaa darteed waxaanu ka dugaynaa dhalinyarada iyo hudheeladaba in maanta caawa 11 wixii ka dambeeya inaan la furin hudheelada la soo xidho oo laga daayo xafladaha noocaas oo kale aan la samaynin oo shareecadana aan ku banaanayn diinteena aanay banaynin mabaadi'deena islaamka iyo dastuurkeena ka hor imanaysa sidaa darteed waxaanu ka digaynaa hudheelada inay siiyaan xafladaha qabtaan caawa oo wixii 11 ka dambeeya in la soo jeedo oo lagu soo jeedo hudheeladaas waa mamnuuc Sheekh Khaliil Cabdilaahi wasiirka diinta ee waqaafta ee Somaliland sidoo kale waxay warbaahintu weydiisay su'aal ahayd cidda bixisay amarka ciidamada amniga ee Somaliland ay maalmihii ugu dambeysay timaha kaga jarayeen dhalinyarada Somaliland waxaanu ku jawaabay dhalinyarada runtii dhaqankooda yani maartay ka tagtay ku dayashada sameysay in la'aanta ah inay maxaan ku raadayay wax ka qabato hadday tahay dhinacii kooxaysiga dhalinyarada hadday tahay dhinacii maxaan ku raadayay dharka iyo qaabka u xiran yihiin ama timaha u xiranayaan wax la mid ka ah oo runtii noqotay wax fara laga qaadan oo waalidkii iyo aan ixtiraamaynin wax dhinacii madaarista iskuulada aan laga xishoonaynin oo markastoo tibaa loo hagaajiyaba ad arkayso iyagoo haddana si kale ama ciyaarto waxay ku daydaan ama maarata dad kale oo maxaa jilayaasha aflaamta ku daydaan ama dad maarata dhaqankooda aan dhaqankeena ka duwan yahay ku daydaan waxaas oo dhan runtii waxay ka mid ahayd waxyaalaha runtii wasaaradda diinta waqaaftu ay xaqiiqatan 100 maalmood ee xukuumadda cusub ay ka hirgelinayso maxaan ku dhahdaa in dadka lagu soo dabaalo dhaqankii wanaagsanaa talaabadan uu soo saaray wasiirka diinta ee waqaafta ee Somaliland ayaa shacabku isweydiinayaan ma noqon doontaa talaabo wax lagaga qabanayo hudheelada inta badan habeenkii ay ku caweeyaan dhalinyaradu ilaa nuska habeenkii haba ugu sii darnaanto caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo iyadu goobaha qaar ay habeenkii jiraan hudheelo ilaa saqda dhexe habeenkii albaabadu u furan yihiin se talaabadani ma waxa weeye oo kaliya mid wasiirku xasuustay ku dhawaaqisteeda xilligan oo ay taagan tahay bilowga sanadka cusub ee 2018 oo ay talaabadani u gaar noqon doonto aad buu mahadsan yahay wariye Khadar Ciise Dheere daawadayaal isla gudaha Somaliland ayaan weli ku guda jirnaa ciidamada ammaanka ee Somaliland waxay markii ugu horeysay magaalada Hargeysa ay ka sameeyeen hawlgallo ka duwan hawlgalladii kale ee ammaanka ay ku xaqiijin jireen kaasoo ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa isla markaana ku koobnaa daayarta ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa
iyadoona ciidamada ammaanka howlgalkaasi ay fulinayeen waxa mid hadhiyo habeenba ay sameynayaan isla markaana ay daayarta kaga xiriireen timahooda haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa arrintaasi ka hadlay isla markaana qayladhaan kala duwan oo dhalinyarada kasoo yeedhay arrintaasi ka waramay isla markaana sheegay inay aada uga xun yihiin qoraabooba yuusuf dacaale iyo garyaqaan guuleed dafac faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya isla markaana noo diyaariyey wariyaasheeda kala duwan ee ku sugan stuudiyahayga magaalada Hargeysa. qoraa Cabdiraxmaan Yuusuf Dacaale Boobe oo maanta waraysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga SAB ayaa ka warbixiyay mushkiladda iyo aafadan ay soo saareen ciidamada booliska isla markaana timaha lagaga xirayo dhalinyarta waxaana uu sheegay in la raadiyo xal aan kaas ahayn oo ah qabqabashada iyo sidoo kale timo ka xirista dhalinyarta balse waxa uu soo jeediyay Cabdiraxmaan Yuusuf Dacaale Boobe in xal la raadiyo aan ahayn kan qabqabashada ah iyo kan timo ka jaridda ay sameynayaan ciidamada booliska Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri ilaahay sanadka cusub ee 2018 inooga dhigo mid barwaaqo iyo nabad iyo badhaadhe aynu ka helo intaa waxaa ii xiga mawduuca ugu badnaa baryahan ee lagaga hadlayay baraha bulshada ama sida aan maqlay magaalada Hargeysa ka socda waxa weeye qabqabashada la qabqabanayo dhalinyarada oo laba ah qaar lagu eedeynayo inay ammaanka wax u dhimeen oo la xirxirayo iyo qaar la leeyahay ciidamada boolisku ma qasbaysataan oo timaha ayay ka xirayaan waxaan ku darsanayaa codkaygan nin garyaqaan ah oo xalay ka hadlayay SAB TV guuleed Axmed Jaamac Dalfac oo daafacayay xuquuqda dhalinyaradaas timaha ilaahay baa beeray timaha haddii la gooyo timuhu way soo baxayaan timuhu waa timihii ilmaha laga gooyeyna waa ilmihii isaguna isbedeli maayo timuhuna isbedeli maayaan xal ma aha waa deeleydii darandoorrisaan qaad dib u soco hore iyo dib u soco la daaweeye taagnow waxa la yaalaa wax isbedeli ma jiraan ilmaha waa la qabanayaa waa la xidhayaa dabeedna saldhiggaa la geynayaa jeelka 2 sannadood baa loo goynayaa qaar ka soo baxay baa imikaba loo gooyo haddana lagu celiyey berritana wuxuu ka soo baxayaa isagoo kii haddana mushkiladda dhalinyaradan haysataa maaha mid ay iyagu galabsadeen oo ay isu keeneen aafada dhalinyaradan haysataa waxa weeye dhibaatooyin isbiirsaday waa qaar dhaqaale waa qaar ijtimaaciya waa qaar akhlaaqeed waa qaar diiniya waa dhibaato badan weeye internet aynaan garanayn waxa la yaalo wuxuu yahay baa ku furan oo mindi laba afla ah oo wax wanaagsanina ka soo baxaan wax xumina ka soo baxaan waalidkii carruurtan dhalay xaalad dhaqaale oo adag bay ku nool yihiin ilma aanad qalin u iibinayn ilma aanad ra'iisla geynayn oo timaa ka xiirayn ilma aanad biil siinayn ilma aanad guri geynayn ilma aanad lacag iskuul ka bixinayn sida aad u xukumaysaad ugu talinaysaa oo wax adag weeye dhibtaasaa mujtamaca haysataa marka haddaynu maanta xal u moodno inaynu timaha ka googoyno suuqa ku qabqabanno oo ku sharaf dillo oo ku karaama dillo xal ma aha ninka bilayska ah ee carruurtan loo diray ee la yidhi ka soo googoo timaha ama timaha ka googoynaya ka xidhxidhaya isagu qudhiisu xaalad dhaqaale oo adag buu ku nool yahayoo waxaa laga yaabaa gurigiisii inaan dheriba dab la saarin intii yarayduu suuqa u shaxaadi lahaa reerkiisa isna tanuu ku mashquul yahay waa laba cududood aynu labadaba u baahanay bilayska iyo dhalinyaradu hadday labadii iska hor yimaadaan aafaa ka soo dilaacaysa halkaas waxaanu soo jeedinaynaa inaan xal loo arkin in carruurta wax dhibaato oo inankaasi timaha uu iska xiray nagu haysaa ma jirto isagunbaa timihiisii waayey hadduu xarraga mooday isagay u taalla laakiin tii dhibaatada dalkan taallaa waxa weeye waa ammaan darrada aynu xal u doonno saldhig la geeyey iyo jeel la geeyaana xal maaha aynu tashanno dawlad iyo dadweyne aynu isu tagno dawladdu qorshe lagu heshiis yahay oo maangala oo waara ha la timaado haddaynu dadweynaha nahay wixii tala aynu hayno wixii aynu qaadhaan maahay qaadhaan luxdan wixii aynu hayno aynu innaguna ku darsanno sidaasun baynu ku maarayn karnaa aynu isugu tagno laakiin tii si sarkaxaadisa gaariye wuxuu yidhi daacuunku naga guur kuma dabargo uu yidhi bal aduu daacuun waddan ka dhacun waxaa tiraa daacuunoo naga guuroo naga tag dee tegi maayo marka aafadan dhalinyarada haysataa waa mid taagane aynu isugu tagno dadweyne iyo dawlad aynu maaro dhaba oo waarana u doonno aroornimadii shalay subax ayaa ciidanka booliska Soomaaliland qabqabasho iyo timo ka xiir ku bilowday dhalinyaradii timaha weyn la baxay arrintan oo aan lagu soo saarin degreeto mid madaxweyne iyo mid wasiir ayay ciidanku ku sheegeen mid ay iskood isu direen
balse arrinkaasi waxaa si xoogan cabasho uga muujiyay isla markaana barta bulshada ee facebooka ku faafiyey dhalinyarada aadka u isticmaala khadadka internetka. sidoo kale waxaa arrinkaasi si sharciyeysan uga hadlay garyaqaan guuleed axmed dafac gudoomiyaha hay-adda xuquuqal insaanka somalilan. meel aan faa'iido ku jirin la geliyana ma aha marka xataa la arrinkan la iska daayo shareecada islaamka laftigeeda loo noqdo iyadoo magan ugana shareecadu fowdo iyo isku xoog sheegasho iyo askari maqasadka kula dhex jira ma ogola arrinkan sheegi kuma jiro inuu horta shaqadii baarlamaankana ka qaaday oo booliiska waa sharci sameeyo noqday shaqadii maxkamadana ka qaado isagii baa dadkii xukumaya ninkan maqaska sita suuqa kugu dhex xukumaya sida al-shabaabti adamaad iyo ISIS iyo Taliban iyo isaga suuqa kugu dhex xukumaya ilaa waxaad inta maxkamad lagu horgeyn lagu yaado xiirashadani sharci darro haydo dabeedna cadeemo lagu eego maxkamaddu kugu xukunto in laga xiiro marka arrinkan arrin wanaagsan ma dawladdiina mashquul buu ka dhigaya iyadoo dhalatay oo wali dawladnimadii la dhisina shacabkii uu ku kicnay shacabkii uu badan yahay inamada yaryar buu badan yahay inamada yaryar weyna meero masaakiina kuwa xitaa dadka dhiba maaha weyna yaro xaragoonaya maxaynu iskaga mashquulinaa kan inay boobaya jirida ah suuqa xaafadihi u dhacayna soo qabto Soomaaliya miskiin yaro xarage ka raadiyay timihiisa sababta la isugu mashquulinaya ilaa waxa weyn jirtaa muhiimaddu inaanay ka lumin priority maxaa muhiim ka dhigay inaan ka yar timihiisa oo mashaakilaadkan faraha badan ee haysta looga soo dhuumanaya garyaqaan guuleed dafac ayaan weydiinay sida uu sharcigu u arko in la qasbo dhalinyarada iyo diinta islaamkuba waxay ka qabto waxaana uu ku jawaabay waxaana la yidhi arrimahaasi dhaqanka iyo diinta ayay ka soo horjeedaa marka waxaan jecelahay inaan dadka xasuusiyo diinta islaamka waxyaabaha ugu weyn ee ku taagantahay waxaa ka mid ah karaamada qofka bini'aadamka inay ilaaliso aayad qur'aan ku soo degtay waxa bini'aadamku karaamaysan yahay waxyaabaha diintu maqaasideedkooda ku taagan yahayna waxaa ka mid ah in sharafta qofka bini'aadamka la ilaaliyo maanta waxaa soconaya waxa weeye ilmo yar oo sharaf iyo karaamo leh baa la bahdilaya oo inta suuqa la soo ummadoo dhan daawanayso xitaa wax laga duubayo ayaa timaha lagaga xiray waa bahdilaad halkii u liidatay sharciyadu way ka soo horjeedaa sharciyada waxyaabaha labaad ee ilaaliso waxaa ka mid ah cadaalad wax la yiraahdo cadaaladdu waxa ku sameeyay inta haddaad khalad samaysay inta lagu hogeeyo garsoore dhexdhexaad in intuu cadaynta dhageysto uu ku xukumo laakiin tii lama geenay qofkii booliiska maanta saga garsoore oo dadkii timaha ka xiray ta saddexaad ee muhiimka waxa weyn la is xasuusiyo ilaahay isagoo qurumo hore la hadlayay ayuu wuxuu ku diinta barnaamijka rumaynaysan barnaamijka ka tagaysa diinta laga bilaabay inamada yar timahooda gashay iyo intii kale oo dhan la iskaga tagayna xadii aayada quraanka baa ku qabanaysa xulkoon waa mashaakilaadkan kale waaweyn ka jira maxaad u arkaydo ilmaha yar timihiisa aad uga bilaabaysa marka arrinkan arrin wanaagsan ma dawladdiina mashquul buu ka dhigaya iyadoo dhalatay oo wali dawladnimadii la dhisina shacabkii uu ku kicnay shacabkii uu badan yahay inamada yaryar buu badan yahay inamada yaryar weyna meero masaakiina marka runtii madaxweynaha Soomaaliya ka codsanayna arrinkan arrin u wanaagsan dawladnimadana ma sareyntii sharcigu ku ololeeyeen way ka soo horjeedaayo waa fawdo caadi ah dawladnimadeennina way ku xuntahay muhiimad waaweynina wiinoo yaalaayo tuugta iyo rabshadaha dalka ka socda si wax looga qaban lahaana waynoo taalaa resource-ka yareenu haysano inay la qabto waxan booliiska yeenaanay la qabin haddana la qabin weynay ka joojisaa booliiska taada hawlo waaweyn bay idin yaalee hawlaha idin yaala qabsada anaga carruurta iyo timahooda mashquul ku gelimayne wasaaradaha caafimaadka waxaan raahdo waxbarashada dhalinta iyo ciyaaraha dhaqanka iyo dawladaha hoosena inta isku tagaan carruurtan sidii jihayn loogu sameyn lahaa meelay kubada ku ciyaaraan loogu sameyn lahaa garoomo loogu sameyn lahaa maaragtay librariya wax ku akhristaan loogu sameyn lahaa halaga aflagooda hala galo hala toosiyo oo halala sheekaysto logica ka dambaysa booliisku inuu ku mashquulo timaha carruurta bal waxa ka galay timahan marka booliiskan suuqa ciyaalka baxsanaya in xaafadaha joogta ka ilaaliyaan bee daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha loo dilhaantiinba meel kasta aad joogtaan intaasi waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii xogta toddobaadka oo weygiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee saab barnaamijka waxaa idinla socodsiiya anigoo cabdiraxmaan abdilaahi fantastiga waxaan sidoo kale barnaamijka uga mahad celinayaa oo la-aantii aan inoo suuro gashayn injineer oji iyo injineer cabdirashiid khadar iyagu gacan weyn ka geystay soo bixista barnaamijkaasi intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono usbuuca soo socda waxaan kaga tegayaa dhankayga sidaas iyo nabadgelyo